السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا مشهد زكيدو عايزناه فضل هذا ولي سبسكرايب صارين علامة كودسكا كل فوق قنبلة كنفورة فيديو قصة سنتي سنة والله كتا انت اسمك سميسي سبسكرايب باللايك فيديو كان حلال أيوكو يا والله المعان هذيك لك كذب هبل دارن بهذا انت سمين وإذن كرسونا إن أنت سمين إبراهيم ويل دأير أو كفكريا صاحباديس ومركز تكفكرو أيقنا وينعبيهن أسجنا وحربا إنه لا صاحباديس لكن حلم أو هايو وحكيا أسجو ما رجع قريجا وحكسو بحيا أما كسو بوفصميا وأتجا قلك ولا شيء أو كلها يا ولا الوام هي وحن أتصوب في شيء أو إيجان حسي واحد كلها سوا وحن وعادي ولا وبهال تذكر لعب لوبو فيه أصدقنا حلقاس أيوكيليا حل هدوفي عن سلامركيبا وكتفيا وكتفيا oo ku dhahaya walaal ana raasi waxa ku dhaysaa haye wuxuu ku dhahayaa walaal maad school ma aadaysaa ayadan waxa ku dhaysaa maya ma aadayo waxay dhahaysaa maya ma aadayo Ibrahim ayaa u soo baxay banankii oo soo socday waxaa ka hor imaaday labadiisi saaxiib uu jeclaa ayagana ay nacbaayeen waxay ku dhaheen war maanta walaasha aaway kiiburna oo feeraha weyna ayaa qoslay ayuu yiri Ibrahim ayaa yiri walaashay waxba kama sheegi kartiin kiiburna ayaa yiri war maxaa ka qoslaya waan ka sheegnaa waa ka sheegnaa arso dhawow Ibrahim gudgudal ayuu u baxay sababta caata ayuu ahaa wuxuu la soo baxay suntiisa oo ku buufiyay isla markiiba bartaas ayuu ninkii gacanta u haadiyay Ibrahim oo isla qasqasleen kol ayaa yiri wariya jaag maxaa ka galay ninka maadishid ka banee ana dilaya hadda dili karin fulayo warnaka waa saaxiibkeen kol ayaa xanaaqay oo yiri ana dilay ibane Ibrahim isla markiiba wuxuu ku buufiyay wixii isku buufin jiray oo walaasii soo siisay halkaas ayay ku noqdeen saaxiibo Ibrahim ayaa yiri hadda ka bacdi waa inaad ani ilaalisaan labadiina saaxiibo ayaana nahay kol ayaa siinay Ibrahim wax jeebkiisa ku jira oo cunto ah wuu siiyay oo u jeedaan wuu siiyay hadda kol ayaa dhahay tag masiisid caagadi jeebka ku jiray wuu soo saaraya wuu nasiyay wuu siiyay caagadiina Ibrahim wuxuu mid siyaasad badan uu soo kaxaystay oo wuxuu u keenay xaafadiisi ayuu soo kaxeeyay xaafadiisi ayuu soo kaxeeyay Jack ayaa miirka ku soo laabanaya oo dhahay war maxaa xagee u soconaaniyow kol ayaa dhahay Ibrahim saaxiibkeen ayaa nacasumay ileen waa saaxiibkeen haddana kol miirkiis ayaa ku soo laabanaya labadubana saas ay ku xanaaqayaan oo miirkooda ku soo laabanaya waxayna ku ordayaan Ibrahim si ay u soo dilaan Ibrahim ayaa dareemay in lagu soo socdo uu ordaya wuxuu xasuusanaya inuu haystay baashi wuuna ku soo kala firanaya wuuna ku shubay hadda wuu ku shubay waxay ku soo laabteen sidoodii caadiga ahayd saaxiibo ayayna noqdeen Ibrahimna wuxuu yiri war baashani muddo yar ayay shaqeynaysaa way soo socdeen markay soo socdaanba uu ku shubay maalintii dambe waxa imaaday iskuulka oo ku yiri Ibrahim gabdhii orda iska taga annaga maanta hagaajinayna iskuulka gabdhii markay arrinka maqleen aad ay u farxeen oo yiri Ibrahim aad iyo aad ayaa u maasan tahay Jack iyo kol markay xanaaqaan Ibrahim wuxuu ku shubayay sunta ama sabaasha lagu fiicnaado Ibrahim ayaa yiri warbaashan hadda isku day waxay shaqeynaysaa amal 10 minute waa inaan ka gaarsiiyaa markasta oo ay soo xanaaqaan oo aan ku shubaa Jack
iyo kool markay u imaadaan Ibraahim wuxuu ku shubay suntii amase baashi lagu caafimaadayay oo yiri urbaashani waa baal fiican buu yaabisay walaashayna aan u mahad kool iyo Jack aad ayay u xanaaqeen gabadhii walaashiis Ibraahim waxay tiri Allah walaalkay hadii dadka uu ka badiyo sunta waxay u keenin kartaa inay dadku aad iyo aad u xanaaqaan ee waa inaan u tagaa oo aan u soo baraasidi loo isticmaalo Ibraahim wuxuu arkayaa saaxiibadiis oo aad iyo aad u xanaaqsan oo wajigoodu aad u gudutay waaba arkasaane wuu gudutay wuxuu ku shubay baashi waxbana kamaysan tarin wuxuu isyiday ka carar balse ninkii gacmaha waaweyn ayaa qabtay oo dhulka la dhacay wuu ku qosqoslay oo kool ayaa yiri wariyaahe waa maxay waxaan ugu soo shubaysay maanta oo dhan oo aad noo isticmaalaysay Jack ayaa yiri wariyaahe wacdal iyo bille waa ku dhisiina hadii kale waa maxay waxa ii isticmaalaysay kor ayuu u qaaday isla markiiba walaashiis ayaa imaatay oo labadaba u gelisay madaxa qolof amase bacdaas waxay keentay inay degaan walaashiis oo ku tiri Ibraahim wariyaahe walaalkay baa tahay intaas ayaan kugu caawiyay ee mar dambe waxa sameyn mideeda kale iimaada sheegin baasha waa iska soo qaadatay oo kali iimaada sheegin inaad u isticmaalaysay dadka inay ku dijiso wuxuu ku yiri Ibraahim abayo sorry way iga khaldantay tani iga raali ayuu ku yiri walaashay mar dambe waxaas ma dhici doontee Ibraahim Jack iyo kool ayuu dhulka seexiyay gabadhii ayaa ku tiri Ibraahim laakiin aan xaafadeena aadne maalmaha kamid ayaa dadkii isku kala dhigtay kool iyo Jack ayay soo mareen wadadii oo ku yiraahdeen ku qosqosleen kool iyo Jack ayaa soo baraarugay oo ku yiraahdeen wariyaahe maxaa rabtaan way soo kaceen ayagoo madaxa laga hayo kool ayaa yiri wariyaahe ma xasuusata wixii nagu dhacay ugu dambeyn waa Ibraahim oo nale channelka subscribe has alla saaro bye bye